Turkiga oo Canada ka codsaday in dib u eegis lagu sameeyo cunaqabataynta dhanka difaaca. Wasiirka arrimaha dibadda ee Lubnaan oo sheegay 20% in ay dadkiisu helaan difaac ka dhan ah coronavirus. Iiraan oo adduunyada u sheegtay in ay kaalin muhiim ah ugu jirto jiritaanka dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka adduunka. daawadayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu doorka roon. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ka xiiso badan kusoo dhawaada daawadayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa maalintii Isniintii xiriir la sameeyay dalka Canada si uu uga wada xaajoodaan cunaqabataynta dhanka difaaca ee dalkiisa lagu soo rogay, isaga oo ku booriyay inay dib u eegis ku sameeyaan siyaasadda dhinaca warshadaha, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed oo Turki ah. Wadahadallada dhinaca telefoonka ee wasiirka arrimaha dibadda Moffitt iyo dhigiisa Canada March ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada dal, iyaga oo Turkiga ay ka dhawaajiyeen cunaqabataynta dhinaca warshadaha iyo xayiraadda saaran oo ay sheegeen ilawareedyadani in laga qaado. Wararka kale ee naga soo gaadhaya Turkiga ayaa ka warramaya siyaasadiisa ku wajahan Liibiya, ilaalinta madax-bannaanida Liibiya, midnimada dhuleed, midnimada siyaasadeed iyo daryeelka shacabka Liibiya ayaa ka mid ah himilooyinka ugu sarreeya ee Turkiga, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga oo Isniintii kadib mar uu la kulmay ra'iisul wasaaraha midnimada qaranka ee Liibiya. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu qaabilay ra'iisul wasaare Cabdulxamiid kulan fool-ka-fool ah ka hor inta aysan labadooduba ka soo wada xaadirin kalfadhiga Golaha Iskaashiga Istiraatiijiyadda ee Turkiga iyo Liibiya. Shir jaraa'id oo uu qabtay goor dambe, Erdogan waxa uu ku sheegay in taageerada Turkiga ee Liibiya ay gacan ka geystaan ka hor dhibaatooyinka caasimadda ee Tripoli, iyada oo sidoo kale xasuuq badan ay ka geysteen kooxo debli ah. Waxa uuna intaasi raaciyay in ay gacan ka geysteen xabad joojinta. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Lubnaan Dr. Ahmed Hassan ayaa shaaca ka qaaday in ilaa 20% dadka reer Lubnaan ay helaan difaac ka dhan ah fayraska corona. Warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka macluumaadka qaranka maanta oo Talaado ah, wasiirka Lubnaan waxa uu muujiyay in uu ku qanacsan yahay tilmaamaha wanaagsan ee ay muujiyeen ololaha tallaalka iyo hadda marka loo eego hoos u dhaca heerka dhimashada iyo ka dadka uu soo ridanayo xanuunka. Waxa kale oo uu intaasi raaciyay in maalmahan aan la soo sheegin wax dhimasho ah oo dhinaca shaqaalaha caafimaadka ah. Ahmed Hassan waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la sii wado u hoggaansanaanta tallaabooyinka ka hortagga, isaga oo ugu baaqay dadka soo galaya Lubnaan in ay u hoggaansamaan karantiil 48 saacadood ah si loo hubiyo inaysan u gudbin fayraska ka hor inta aysan dhex gelin eheladooda. Gaar ahaan tan tirada dadka soo galaya ayaa sii kordhinaya waqtiga, waxa ayna u dhaxeeyaan dadka soo galaya 4,000 ilaa 5,000 usbuucii. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Javad Zarif safarkiisii ugu dambeeyay ee 5 maalmood qaatay ee uu ku tegay 5 dal oo bartamaha Aasiya ayaa ujeedadiisu ahayd in uu xusuusiyo ku xidhnaanshaha dalkiisa inuu yahay marin muhiim ah iyo marin ganacsi ee gobolka, iyada oo la isku dayayo in lala dagaallamo caqabadaha lagu soo rogay cunaqabataynta sanadaha badan. Safarka Zarif ee Abriil 3 ilaa 8 waxa uu bixiyay calaamado ku filan oo ah in Tehran ay doonayso inay qaadato doorka isku xidha gobollada Aasiya iyo badweynta biyaha caalamiga ah. Waxa ay u muuqataa in saamaynta Iiraan ee bartamaha Aasiya aysan ku filnayn, ayuu sheegay Igor Bankartchenko oo ka socda xarunta Ruushka ee qiimeeya istiraatiijiyadda iyo saadaasha. Muddooyinkii la soo dhaafay, sanado badan oo kaliya ma aha dhowr mashruuc oo ay Iiraan ku jirto oo la xakameeyay, laakiin ganacsiga ayaa sidoo kale hoos u dhacay ugu yaraan, taasi oo keentay hoos u dhaca saamaynta siyaasadeed ee Tehran ee gobolka.
falanqeeyaasha reer Iiraan Xasan ayaa tilmaamay in hal caqabad oo muhiim ah oo horumarka xiriirka Iiraan iyo wadamada Bartamaha Aasiya sanadihii lasoo dhaafay marka laga reebo cunaqabataynta oo ahayd mid hanaanka dowladda madaxweyne Xasan Ruuxaani oo mudnaanta koowaad siinaya Bartamaha Aasiya. Ku dhawaad hal toddobaad oo waxayna Suez Canal bishii hore oo markab weyn oo koontiinarada qaada uu ku xidhmay jidkaasi ayaa waxaa dowladda Ruushku ay qorsheynaysaa sidii ay u abaabuli lahayd isla markaana kaalin weyn uga qaadan lahayd dib u dhiska waddo kale oo ay maraan maraakiibta. Guud ahaan wararkeenii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo warar kale oo xiiso badan intaan ku kulmi doono waxaan ku dhaafay saas iyo nabadgelyo.